Assalaamu calaykum daawade. Halkan waa xogta qarsoon. Muuqaalkani mar kale waxaan kaga hadli doonaa xaaladda Taliban oo sheegtay in Mareykanku uu qiyaamay. Xilligani waxay adeegsan doonaan diyaaradihii Mareykanka. Waxaase ay sheegeen in Mareykanku uu ka tagay diyaarado aan shaqaynayn. Muuqaalkani ayaan kaga hadli doonaa daawade. Haddii ay tahay markii ugu horeysay uu channelkani ku soo gaaro, bartan waa xogta qarsoon. Magacaygu waa Yaxye Maxamuud Maxamed. Waxaan kaa codsan lahaa inaad saaxiib ila noqoto oo aad channelka subscribe saarto. Hagaag waxaa soo baxay sawirro muujinaya dagaalyahanada Taliban oo wata qalab military oo ay ciidamada Mareykanka kaga tageen garoonka diyaaradaha Kabul ee Hamid Karzai. guud ahaan waa 73 diyaaradood ku dhawaad 100 gaari iyo qalab kale oo ciidamada Mareykanka ka tageen markii ay ka baxeen Afghanistan waqtigii loo qabtay 31 Agoosto. laakiin madaxa taliska dhexe ee Mareykanka General Kenneth McKenzie ayaa sheegay in dhammaan qalabkaas laga dhigay kuwa aan la isticmaali karin. diyaaradahaas ma ahan kuwa dib dambe u duuli doona ayuu yidhi. diyaaradaha loogu tagay Kabul waxaa ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca MD-530 oo loo adeegsado sahanka iyo weerarka dhow ee 29 oo ah diyaaradaha weerarada fudud loo isticmaalo. bishii Juun ciidamada qalabka sida Afghanistan waxay adeegsadeen 43 MD-530S oo ay bixisay Mareykanka 23 qiimaha alaabta shakhsiyeed ma aha kuwa si toos ah loo sheegi karo, laakiin qiimaha qaybta ee 29 ayaa lagu sheegay inay ka badan tahay $10 milyan oo dollarka Mareykanka. muuqaal u duubay wariyaha LA Times Nebayapolis ayaa muujinaya dagaalyahanada Taliban oo wata helikobtarada nooca CH-46 Cyanide. waxaa adeegsaday waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka si ay shaqaaleeda ugu daadgurayaan safaaradda Kabul. 7 ka mid ah diyaaradaha ayaa la sheegay in laga dhigay kuwa aan shaqayn karin oo laga tagay. ugu yaraan hal diyaarado oo nooca C-130 Hercules ayaa sidoo kale la sawiray iyadoo taala laamiga. sida laga soo xigtay General McKenzie 70 baabuur oo lagu baaro miinooyinka ayaa iyagana laga tagay kadib markii laga dhigay kuwa aan gebi ahaanba shaqaynayn. qiimaha hal gaari oo noocaas ayaa lagu sheegay inuu gaarayo intuu dhaxaysa $500,000 ilaa $1 milyan. sidoo kale waxaa Kabul loogu tagay 27 baabuurta militariga dhulka gaar ahaan nooca Humvee. tiro aan la cayimin oo qalabka difaaca gantaalada iyo madaafiicda ayaa sidoo kale laga tagay. ha yeeshee dhanka kale ciidamada Afghanistan waxay ka carareen hub ay u saamix weysay inay burburiyaan ama ay curyaamiyaan qalabkaas. sawirada dayax-gacmeedku waxay tilmaamayaan in diyaarado qaar laga saaray dalka Uzbekistan maalmo ka hor burburkii dowladda Afghanistan. waxayna khibradu tilmaameen in diyaaradaha qaarkood laga yaabo inay aad u xadidan yihiin Taliban sababtoo ah ma haystaan duuliyaal tababaran iyo sidoo kale u helidda dayactirkooda. balse inkastoo aysan suuragal ahayn in la sheego tirada saxda, haddana in ka badan 167 diyaaradood oo ay ku jiraan 33 helikobtar oo nooca UH-60 Black Hawk oo ay gacanta ku hayeen ciidamada qalabka sida ee Afghanistan dhammaadkii Juun ayaa hadda loo maleynayaa inay ku jiraan gacanta Taliban. sidoo kale Taliban ayaa si cad u adeegsanaysa hub kale oo nooca Mareykanku leeyahay oo waxaa loo arkayay kuwa muhiim u ah ka tirsan ciidamada gaarka ee Taliban ayaa lagu sawiray Kabul ayagoo wata qoryaha M4. Mareykanka ayaa sidoo kale ciidamada Afghanistan siiyay in ka badan 2500 oo gawaarida militariga ee Humvees laga bilaabo December 2017 ilaa Abriil 2020 sida uu sheegay kormeeraha guud ee Mareykanka ee dibadhiska Afghanistan. khibrada kale ee ku takhasustay qalabka militariga ayaa sheegay in qiimo weyn ay u yeelan karto kooxda Taliban oo ay ka faa'iideysan doonaan muraayadaha aragga ee habeenkii kuwaas oo gaaraya 16,000 oo la siiyay ciidamada Afghanistan intuu dhaxaysa 2003 ilaa 2021 bilowgeeda. Taliban hubkaas oo dhan xilligan gacantooda ayuu ku jiraa waxaana saameyn ay ku yeelan kartaa arrimo fara badan. haddaba iyadoo ay taasi jirto dowladda Ingiriiska ayaa xaqiijisay in mas'uuliyiinteeda ay bilaabeen wadahadallo ay la yeelanayaan wakiilo sarsare oo ka tirsan Taliban kaas oo ku qotoma sidii muwaadiniinta Ingiriiska iyo kuwa reer Afghanistan si nabadgelyo loogu daadgurayn lahaa UK. xafiiska arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegay in shaqaale dheeraad ay u dirayaan dalalka dariska la Afghanistan si ay uga caawiyaan dadka isku dayaya inay qaxaan. dhanka kale madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa difaacay go'aankiisa in ciidamada Mareykanka laga saaro Afghanistan. tallaabadaas oo keentay in Taliban ay dib ugu soo noqdaan awoodda. kusii dheeraanta ma ahayn ikhtiyaar ayuu Mr. Biden ku yiri khudbad uu jeediyay maalin kadib markii uu dhamaaday 20 sano ee Mareykanku uu joogay dalkaas oo gacan saar xoogan uu ku lahaa. hagaag daawada muuqaalkeeni waa naga intaas maanta.